oo runtii arrintii u bandhignay si fiican aan runtii arrintii isku la qaadanoo aad isku fahanay barasaabkuna wuxuu ku taliyay in wasaaradda arrimaha gudaha arrintaasi loo wareejiyo si ay tallaabooyinka uga sharciyo iyaguna u maraan uga qaadaan ilaa hadda wax yeedhma ah oo wasaaradda arrimaha gudaha oo rasmi ah nooga yimid ma jiro runtii eedaynteedu waxay eedayn musuqmaasuq eedayntaanu sheegnay waxay ahayd eedayn caddeynteeda hayno oo runtii hay'adaha ay khusayso daqiiqada u baahdaan baanu diyaar loo nahay taasina waxa weeye insha Allah cidii nooga baahataba diyaar baanu nahay inaan gudbino waxaan jeclahay waxa qurux badan hadallada runta laga sheego waxaan kugu soo noqonaynaa in la yeelaa wanaagsan shaqaalaha caafimaadka gudnooyinka la siinayay inaan la siinin 3 bilood dambeeyay xaqiiqadeedu waa xaqiiqo jirta maamulayaashii 87 iskuul oo gobolka dhan ka kooban inaan iyagana la bixin taasina waa xaqiiqo kale bishii afraad ba hadda socotaa la bixin waxaan jeclahay in runtii arrimahaasi xaqiiqadooda leeyihiin caddeyntooduna waan haynaa cidii u baahatana iyagana waan la wadaagi doonaa insha Allah waxaan cadeynayaa inaanu goluhu hayn xisbiyo goluhu yahay golihii degmada Gabiley lahayd nimanba xisbiyo ka soo baxay laakiin maanta waxa lagu shaqeynaa waxa weeye golo midaysan in runtii eedeymaha iyo musuqmaasuqa la soo eedeeyay lagaga gabado xisbi hebel iyo cid baa yeeriyanaysa iyo reer hebel baa yeeriyanaya doodaas waa dood jaban doodahaas waa wixii ummadda lagu boobay runtii waxaan jecel lahaa in gooni la iskaga dhigo wixii xisbinimo iyo waxa la xidhiidha waxaan ku hadlaynaa wax xisaab weeye waa hanti ummadada ilaalinteeda weeye waa wixii uu nafaray xeerka iyaga iyo dastuurku inta ay sheegayeen weeye waxaan jecel lahay in laga hadlo